wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Shucayb Cabdikariin oo hogaaminayay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Jowhar ee kan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta kormeer indhendheen ah ku sameeyay ceelasha biyaha ee magaalada Jowhar iyo tuulooyinka ku teedsan sidoo kale wasiirka ayaa booqday webiga Shabeelle oo iminka u muuqda mid biyihiisa ay sii yaraanayaan isla markaana walaac ay ka muujiyeen shacab ku nool Jowhar iyo tuulooyinka ku dhow wasiirka ayaa kormeerkiisa ku soo gabagabeeyay tuulada Jowhar Soomaali oo kamid ah tuulooyinka kaabi ku haya magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe isagoona halkaasi kula kulmay mas'uuliyiinta tuulada waxayna kaga warbixiyeen xaaladda biyo la'aaneed ee ka jirta tuulada Jowhar Soomaali wasiirka Hirshabelle iyo hoggaan wasiirka Hirshabelle macdanta iyo biyaha iyo oo hogaaminay maamulka oo la jiro iyo wafdi maantana soo booqdeen oo maanta sabtida insha Allah waxay ay nagu soo kulmeen aniga ay sheekada ka bilaabatay hadda wax qabadka ceelasha aan noloshayna ayayna la arkeen wixii markaas oo dhibaato keenayna waa arkeen wixii ma u baahantayna waa arkeen anigana waxaan u baahanahay wax biyaha muhiimad waaye waa nafta nolosheeda waaye agaasimaha waaxda tamarta iyo biyaha ee wasaaradda macdanta iyo tamarta biyaha dowlad goboleedka Hirshabelle iyo duqa magaalada Jowhar ayaa iyana wasiirka waxa ay kaga warbixiyeen xaaladda biyo la'aaneed ee iminka soo wajahday tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar kadib markii biyaha webiga Shabeelle ay yaraadeen tuulooyinka ku yaal intii webiga uu sii guraya hadda gobolka Hiiraan uu ku soo guray dadka webiyada agtooda degan ma haystaan ceelal iyo dayactir way cabi jireen biyaha hadda haday ay go'aan waxay noqonayaan dadku inay oolay noqdaan biyo dhaamis la galo hay'adaha caalamka wasiirka wasaaradda arrimaha biyaha iyo tamarta iyo dhammaan hay'adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa biyaha waxaan aadnay maanta oo aan kormeer u aadnay webigii oo si yaraanaya oo biyihiisi ay yaraadeen biyihina aad moodaba inay xintoydii biyihii dhicitaankoodii uu yaraanayo iyo tuulo u dhow ee la yiraahdo Jowhar Soomaali taasoo aan ugu kuurgalnay sida waxa jira iyo dhibaatada ka jirta iyo sida biyaha ay ku socdaan iyo qaabka ay yihiin waxa in badan istusaalaynay in webiga biyi aad u yaraadeen isbedel uu ku yimid marka waxaan rabnaa annagoo maanta ka faa'iideysanayna telefishinkan kana in ay ummadii iska jiraan nadaafad darida ka jirta iyo magaciisa biyi oo isbedel wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Shucayb Cabdikariin ayaa ka hadlay waxyaabihii kormeerkiisa indhendheentaha uu kala soo kulmay waxa uu sheegay in baahi biyo la'aaneed ay ka jirto tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waxaan maanta kormeer soo marnay webiga Shabeelle ee mara deegaanada inta badan Hirshabelle ka kooban tahay caasimadda magaalada Jowhar inaga ka kooban heer gobol heer degmo iyo magaalada Jowhar waxaan kormeer ma tagnay webiga oo aad biyo yaray oo aad biyo soo liitaan oo saxda ku badan tahay oo aan rabnaa maamulka degmada aan farmankana shaqeeyo oo aleedmo sida ay hormar lahaayeen ama ay hortaga lahaayeen biyaha wasaq dadka cabayaan ay kuna baraarujin lahaayeen sida ugu habboon ee nadiifka biyaha lagu cabi lahaa ka wasaarad ahaan waxaan kaloo booqanay tuulo la yiraahdo ku taala magaalada Jowhar u jirto wax ka yar 5 kiiloomitir waan ku tagnay booqasho gaaban waxaan soo aragnay inay ka jirtaan sidoo kale biyo la'aan u baahan ay u muuqato inay ku tirsan tahay cabida biyaha webiga Shabeelle ee mara deegaanada Hirshabelle waxaa ku yaal dhowr ceel waxaa inta badan ceelasha aad biyaha aan u shaqeynaa ama u liitaan ama ay u fadhiyaan wax macna aan lahayn oo aad u kooban haba u banaatay inta badan bambooyinka ama haba u qodnaadaan si aad u liito oo 5 mitir 6 mitir wax la mid ah biyaha aad u soo gaareen markii xilliyada camal la gaaranayo noo sheegan warbixinta inuu siiyaan in aan biyaha la arki karno bambooyinka soo jiidi karno ceelada bambooyin ku taabsan ay jiraan waxaan markaa rabaa in maamulka heer degmada gobolka aan faro sida ugu hortagi lahaayeen webiga Shabeelle ee biyaha aad ku yareeyo wasaqdiisa dadka u cabi lahayn ama way ugu hortagi lahayn faydoorka nadaafadeed ee biyaha waxaan farayaa inay aad ugu tacaamulaan ama ay u kor joogteeyaan ama ay ula socdaan dhaqaaqa dadka cabaya biyaha maadaama aad u kulul waa wasiirkii ugu horeeyay oo kamid ah wasiirada dhawaan la magacaabay ee dowlad goboleedka Hirshabelle oo kormeer noocan oo kale ka sameeya tuulooyinka hoos yimaada
degmada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle iyadoona wasaaradda macdanta iyo biyaha ee tamarta dowlad goboleedka Hirshabelle iminka laga dhorsugayo in wax ay ka qabato xaaladda biyo la'aaneed ee iminka ka taagan tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV-ga Kalsan magaalada Jowhar.